Assalaamu calaykum. Maanta waxaan dhigan doonaa unit 2 oo aynu ku dhigan doono is are questions. Saddexdii ficil caawiyaynu soo aragnay sida su-aal looga dhigi karo ama su-aal markaad doonayso inaad ka samayso sidaad uga samayn lahayd. Table-kan koobaad haddaynu eegno positive ama waa ogolaanshihii oo sidaynu hore usoo aragnay ayadu an buu qaadan jiray, he she idna is bay qaadan jireen, we you dayna are bay qaadan jireen. Markaynu table-kan labaad aynu eegno question markaynu doonayna ka dhigno ama su-aal waxaan sameynaynaa ficil caawiyaasha xagga hore aynu keenaynaa. Iminka amtu ayadu ambu qaadan jira markaa amti baynu kasoo horreysiinaynaa halkaynu marka hore ka dambeysiinaynay markaa calaamad su-aal loo hordhigaynaa. he she idna ista waynu kasoo horreysiinaynaa, we you dayna art waynu kasoo horreysiinaynaa si aynu su-aal uga samayno. bal iminka wada sheegaysiga yar ee ay gabadha ninka kula hadlayso aynu eegno. su-aasha ugu horreysay weydiisay waxay noqotay what's your name, magacaa. markaa wadistaa waxa loo isticmaalay su-aal weydiinta waa arki doonaa. su-aal markaad weydiinayso cidna wada had iyo jeer ay calaamad su-aasha yar ay la socotaa si loo garto intay su-aal la weydiiyey. markaa wuxuu ku jawaabay david baa la yidhaha. su-aasha kale weydiisay waxay tahay are you married, adigu xaasla miyaa tahay. wuxuu ku jawaabay no I'm single, may anigu xaasla miyihi ama doob baan ahay. single maaha doobnimo laakiin qofkan xaas lahayn baa loo isticmaalaa. waxay su-aasha kale weydiisay how old are you, mise jir baa tahay. wuxuu ku jawaabay 25 shan. su-aasha kale weydiisay waxay noqotay are you a student, ma arday baa tahay. wuxuu ku jawaabay yes I am, haa anigu waan ahay. wada sheekaysiga yara ka hooseeya haddaynu eegno qof baa wuxuu yidhi am I late, ma habsan baan ahay buu cid weydiiyey. waxaa lagu jawaabay no may you are on time, adigu isla waqtigii baa timi. su-aal kale ayaa la weydiiyey qof is your mother at home, hooyadaa guriga ma joogtaa. wuxuu ku jawaabay no she is out, may iyadu way baxday. qof kalea la weydiiyey are your parents at home, waalidkaa guriga ma joogaa. wuxuu ku jawaabay no they are out, may iyagu way baxeen. haddana qof baa la weydiiyey is it cold in your room, qolkaagu ma qabo mise dhaxan ma ka jirtaa. wuxuu ku jawaabay yes haa ee little wax yar. qof baa la weydiiyey your shoes are nice, kabaagu way wacayeen, are they new, iyagu ma cusayb baa. qofka su-aasha la weydiiyey ay ahayd is your mother at home, hooyadaa guriga ma joogtaa. waxaa la sameeyey istii ayaa waxaa lagu xigsiiyey magaca hooyadii marka waxaa la yidhi is your mother. waxaa kale la samayn karaa your mother waxaa loo bedeli karaa magacuyaalkeeda oo ah she. marka waxaa la oran karaa is she at home, iyadu guriga ma joogtaa. waa haddii dee uu fahmayo qofka su-aasha la weydiinaya. laakiin lama oran karo is at home your mother, waxaan micnahiisu way khaldamaysaa. ista laguma xigsiin karo at home, gurigii istii laguma nabi karo. markaa khalad weeye, grammatical ahaan waa khalad, sidaa lama sameeyo. qofka su-aasha la weydiiyey are your shoes new, kabahaagu ma cusayba. waxaa la samayn karaa your shoes waxaa loo bedeli karaa magacuyaalkeeda oo day ah. marka waxaa la oran karaa are they new, iyagu miyay cusub yihiin. laakiin ma oran karaysid artii kuma xigsiin karaysid new cusaybkii, ma soo hormarin karaysid are new your shoes, ma cusayb kaba. micnihii wuu khaldamaya markaa grammar ahaan ingirishta waa khalad, sidaa lama sameeyo. kelmadahan waxaa loo isticmaalaa su-aal weydiinta. markaad qof su-aal weydiinayso ayaa la isticmaalaa. weerta waxaa loo isticmaalaa halkee, what maxay, who kee, how intee, why sabab. markaa kelmadahan markaad doonayso inaad senteniskaaga ku isticmaasho waa lagu bilaabaa. kelmad kastaba senteniska waa lagu horreysiiyaa. iminka su-aasha koobaad haddaynu eegno where's your mother, meeday hooyadaa. wee baa ku jirta, wee xaggee baa loo isticmaalaa baynu niri. markaa senteniska waa lagu horreysiinayaa, calaamad su-aal baa la dhigay. is she at home, iyadu ma gurigay joogtaa. su-aasha labaad where are you from, xaggaad ka timi. jawaabta waa Canada ayaa qofkaas ku jawaabay. what color is your car, gaarigaaga midabkiisu waa noocma. waxaa lagu jawaabay this red, waa casaan. how old is Joe, da-diisu waa imisa ama waa imise jir. he is 24, isagu 24 jir baa lagu jawaabay. how are your parents, waalidkaa ka waran. are they well, iyagu ma fiicnaayeen. these postcards are nice, postcardadana way wacayiin. how much are they, iyagu waa imisa.
this hotel isn't very good. Hotelkan maaha mid aad u wanaagsan. Why is it so expensive? maxay sidan oo dhan qaali ugu tahay? marka what is markaa doonaysa inaad soo gaabsato short form aad u qorto what apostrophe s baa loo qorayaa. who is markaa doonaysa inaad soo gaabsato who apostrophe s baa loo soo gaabinayaa. how is markaad soo gaabsanayso how apostrophe s. where is markaad soo gaabsanayso where apostrophe s baad soo gaabsanaysaa. tusaale ahaan what is the time markaad doonaysa inaad tiraahdo markaad doonaysa inaad soo gaabsato what apostrophe s the time. where is markaad doonaysa inaad soo gaabsato where apostrophe s Lucy ayaad soo gaabsanaysaa. halkay joogtaa Lucy. who is that man waa kuma ninkaas. who is markaad soo gaabsanayso who apostrophe s baad soo gaabsanaysaa. how is your father aabaha ka waran. how apostrophe s how is markaad soo gaabsanayso. xagga waxaan ku baran doonaa short answers jawaab yar. markaad jawaab yar markaad doonayso inaad bixiso sidaad ku bixin lahayd maxaan ku baran doonaa. markaad jawaabta doonaysa inaad bixiso marka tableka koowaad haddaynu eegno jawaabta doonaysa inaad bixiso hadday tahay haa anigu saasanahay haa isagu sidaasuu yahay hay ay jawaabtaadu tahay positive waxaynu sameynaynaa ayadu anbuu qaadan jira soo maaha amta yes baan ka horeysana markaa yes ayaa maxaa anigu bay noqonaysaa. heshiidna id bay qaadan jira yes baad ka horeysanaysaa. wiyu dayna maxay qaadan jiraan r yes baad ka horeysanaysaa. tablekan labaad waxaan ku eegi doonaa markayn diidmada sameynayno ama aanad oran leedahay waxa anigu ma sameynin anigu ma ihi waxaas waxaan sameynaynaa no bayd ka horeysanaysaa. I am t iyo he is iyo she is iyo it is iyo we are you are they are no ubay ka horeysiinaynaa notna waan ka dambaysiinaynaa. marka waxaan oranaa tusaale ahaan no I am not anigu sidaa ma ihi. no he is not no she is not no it is not saasad u socon doontaa. marka imika waxaan soo wada gaabsanay intan dhexe oo dhan I am t he is t she is it is ayay soo wada gaabsanay short formkii ama qaabkii soo gaabinta oo qornay. waxaan samayn doonaa isla diidmadii tablekan saddexaad bay ku eegi doonaa isla diidmadii laakiin aynu soo gaabintii aynu ka dhignay nodii baynu raacinay ficil caawiyaashii baynu isku dhejinay. marka waxaynu nirnay no she isn't iyadu maaha no he isn't no it is isn't no we aren't no you aren't no they aren't anigu sidaa maahi iyagu sidaa maaha anagu sidaa manihin isagu sidaa maaha. marka waxay la micno tahay tablekii ka horeeyay waa isku micne laakiin soo gaabitaanka bay kala duwan yihiin. sawirkan haddaan eegno ka taagan waxa uu yiri that's my seat waa halkan fadhiya halkan ka fadhiyana wuxuu yiri no my it isn't maaha meeshaad fadhiday diidma ayuu bixiyey. marka tusaalayaal kalena waxaynu ku arkaynaa xaggan hoose su-aalayaal iyo jawaabo ahba. marka goorma ayaad jawaabta yar isticmaalaysaa ama short answer goorma isticmaalaysaa. waxaad isticmaalaysaa marka su-aasha lagu weydiiyey ay ka bilaabayso ficil caawiye are you oo kale am I is she is he. su-aal ficil caawiye uu ka bilaabayo haddii aad aragto short answer baad isticmaali kartaa. iminka haddaynu eegno su-aasha koowaad are you tired adigu miyaad daalan tahay waxaa lagu jawaabay yes I am haa anigu. are you hungry adigu miyaad gaajoonaysaa short answer baa lagu jawaabay no I am not may anigu maihi but I am thirsty laakiin anigu waan haraadanahay. su-aasha kale is your friend English saaxiibka ma ingiriisku u dhashay yes he is haa isagu u dhashay. are these your guys kuwan furayaashaadiba yes haa they are haa iyagu waa furayaashaydii. that's my seat kaasi waa meeshaan fadhiyey no it isn't maaha meeshaad fadhiday. marka mar kasta oo su-aasha lagu weydiiyey ay ka bilaabmayso ficil caawiye waxaad isticmaalaysaa short answer ama jawaab yar sidaynu hore usoo aragnay. insha allah maanta casharkeenu halkaa ayuu nagu joogi doonaa waa inoo iyo wiigka dambe iyo exerciseka casharkan unit 2 ah intaa ka horeysa. asalaamu calaykum.